بسم الله الرحمن الرحيم بليه ugu dambeeyay waxa bulshada Soomaaliland daawanaysay musalsal taxana aha oo ay jilayaal ka ahaayeen gudida ka hortaga corona musalsalka xalqadiisii koowaad waxay ku gabagabowday gudido go'aamo soo saartay ay ka bilowday taraawiixda lama tukan karayo ay ku xigsiisay tahajjudka lama tukan karayo ay ku xigsiisay basaska lama wada raaci karayo ay ku xigsiisay gobolada lama tagi karayo ay ku xigsiisay jaadka waanu joojin ay ku xigsiisay jaadkii dib baan u furnay ay ku xigsiisay gawaadhida jaadka waan loo wareegin ay ku xigsiisay gawaadhidii jaadka rinji baanu marnay ay haddana ku xigsiisay maxkamad baa xukunto oo u celin doona waxay ku gabagabowday xalqadaasi iyadoo ay soo fadhiisatay salaada ciid lama tukanayo waa qaybtii koowaad xalqada labaad ee filinka bulshada Soomaaliland ay in badan daawanaysa magaca uu bixisana uu yahay musuq iyo macna darro si ay u bilaabmato ayaa waxa la soo joojiyay muuqbaahiyaasha madaxweyne ku-xigeenkii dhanaaye qaranka runtii madaxweyne ku-xigeenka qaranku waa qofka labaad ee talada dalka ugu sareeya hadduu muwaadiniinta soo hor istaago oo muuqaaladiisu muuqbaahiyaasha ay ka baxaan warka laga filan karayaa waxa weeyaan war hididiilo iyo horumar wata war salka ku haya mashaariic war mafsuud ka dhigay muwaadiniinta taa bedelkeeda madaxweyne ku-xigeenkii dhanaaye qaranka waraaq nin deyr la yiraahdo gudida xogeenada uu soo xarxariiqay baa loo dhiibay brotokoolka madaxweyne ku-xigeenka lagama xishoonin manayna ahayn in sidaa loola dhaqmo madaxweyne ku-xigeen dhan oo qaran la yiraahdo waraaq markuu wax akhriyay aad ka dareemayso xog badan inaanu madaxweyne ku-xigeenka qaranku arrimahanba ka haysan uu higa dibleynayay adigu akhri wuxuu madaxweyne ku-xigeenku u sheegay inuu hayaan 5 milyan waxa kale oo sheegay 1 milyan iyo badh inay baxeen sabab ay ku baxeen oo mujtamaca Soomaaliland uu ku qanci karayana uu muusan sheegin gudidan qolada reer Burca waxa uu bixisay gudida matukatada go'aan kasta oo soo baxa waxa gudida sal u ah inay kula dagaalamayaan cibaadooyinkaada su'aalo dhowr bartan markaa yaala su'aalaha dhowrka anagoo ka wakiilo mujtamaca Soomaaliland ku hadlayna afka iyo dareenka bulshada aan codkoodu meesha dheer gaaraynin anagoo ka wakiila toosinta iyo tilmaamida cidda mas'uuliyadda dalka haysa anagoo nadamqaysa muwaadiniinta dhayalka u dhimanaya anagoo nadamqaysa deeqaha la soo qaaday meel ay mareen aan la garanaynin waxaan doonaynaa inaanu bal weydiino nimanka gudida ee musalsalka maalayacniga ummadda u matalaya su'aalo dhowr 5 milyan oo 5 ambalaas laga iibin kari waaye macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinaya 5 milyan oo 5 magaalo dalka lagu gaari waaye macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinaya 5 milyan oo 5 cusbitaal umada loogu sameyn waaye macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinaya 5 milyan oo 5 uskajiin qaranka loogu soo iibin waaye macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinayna 5 milyan oo 5 dhakhtar oo ku takhasusay xanuunada inay ka hortagooda dunida lagaga soo kaxayn kari waaye macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinayna 1 milyan iyo badh sababta ku baxeen bal waxay tahay ummadda wali looma sheegin ma iyaga beerdhiya muqaata oo masaariifsaday waxa meeshan yaala madaxweyne ku-xigeenka qaranka madaxweyne ku-xigeenku wuxuu madaxweyne u yahay uu matalaa gobolada Soomaaliland oo dhan matalaada dhabta ay madaxweyne ku-xigeenku uu leeyahay waa gobolka Awdal isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal baa hadlay gobolka waxa hoos yimaada degmooyin ciida ka fara badan isuduwuhu wuxuu sheegay inuu ambalaaskii hospitalka weyn ee magaalada Boorama fadhiyo isuduwuhu wuxuu sheegay inaanay adeeg gaadiid oo ay haystaan ka gobol ahaan ayna jirin
magaalooyinka Qulujeed Boon Xariirad Baki Lughaya Dila kuwayaalahaasoo dhani waxay hoos yimaadaan gobolka Awdal iyo gobolka Sare mas'uuliyadda ugu weyn ee qaybinta khayraadka gobolka gaarana cid ay saaran tahay waxa weeyaan magaalada Boorama bila ambalaasa 5 milyan waan hayaa lama garan karayo waxaan doonayaa inaan dib u xasuusiyo madaxweyne ku-xigeenka adoo matalaada gobolka Awdal haysta taasi waa ambalaaskii oo jiiti ay ku qoran tahay oo cusbitalka magaalada Boorama uu lahaa oo fadhiya qofka ku neef qabatooba magaalada Qulujeed ama Boon ama Dila ma tigba lagu soo qaaday madaxweyne ku-xigeen haddii aad awoodi kari weydeen 5 milyan ee aad sheegaysay ambalaas aad ugu iibiso haddii aad awoodi kari weydo 10 sanadood madaxweyne ku-xigeen qaran ahayd inaad baahida gobolka aad matalaadiisa leedahay aad gufayso ma waxaad awoodi kari weydeen inaad mushaharkaaga ambalaas ugu iibiso ma waxaad awoodi kari weyday 80 gaari ee kala duwan electric cars ka gurigaaga ku xareysan inaad mid ugu deeqdo anu ma garan karayo luqadda Soomaaliga damiirka noocaas waxa lagu fasiriyo waxa la yiraahdo dadka suugayaan kan u dhaafay waxaan xisbi ahaan qabnaa anagoo shacabka Soomaaliland ka wakiila cod dheer iyo ku gaaban baan kula hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudana madaxweyne gudidii aad magacawday way fashilantay waa gudida diiday hanti dhowrihii qaranku inuu galo oo lacagtu meesha martay la ogaado waxaana muuqda musuq baaxad leh waa gudida 5 milyan baanu haynaa afka kale ficil ay qabteen muddada ay magacaabay yihiin ayna muuqan mudana madaxweyne intaan xaaladdu saan ka sii xumaan xisbi ahaan waxaana damqaya muwaadiniinta dhimashadoodu dhaylka u baxayso ilaahay baa dhimashada iyo nolosha baxaya laakiin asbaabta ku imanaysa idinka xukunka haya oo mas'uuliyadii haya lamana eegan karayo aqlan wa sharcan wax la aqbali karayna ma tallaabo inaad qaadaan madaxweyne ku eeg tallaabo inaad qaadaa ku eeg tallaabo inaad qaadaba ku eeg oo inaad nimanka ummadda ka hor dhaqaajiso guddi kale oo dalka iyo dadka u damqanaya oo daryeelaya dadka bukaankaana adib u magacaabo laba lacagta guddidana hayso ay sheegayso ma garanay meel ay taalo guddida waxa la gudboon waxa cabanaya iskuuladii gaarka ah macallimiintii ubadkeena iyo mustaqbalkeena soo saarayay waxa cabanaya madrasadihii quraanka macallimiintii dhigayay oo 4 bilood ay xidhan yihiin iskuuladii oo kiradii lagu leeyay oo waxay meesha ay ku kireeyaan iyo macallimiintii waxay cunaan ay laayihiin mas'uuliyad baana dawladda ka saaran oo dugsiyada dawladdu ma aha mas'uuliyadda saaran ee waa mujtamaca Soomaaliland oo dhan 5 milyan ay hayaan war dadka danyartana loo qaybiyo macallimiinta iskuuladana hal la siiyo fadlan is'asilo ummadda ka hor dhaqaaq waa taladayada fadlan is'asila oo ummadda ka hor dhaqaaq wax la daawan karayo waxaad ku dhaqmaysaan ma ugu dambeyntii ummadda Soomaaliland dadka wax bixinaya dadka shirkadaha dadka deeqaha bixinaya waxa la gudboon inay sameeyaan badbaado shacab waxa la gudboon inay gudiyo hoose oo gobolada hantida aamina loo dhiibo waxa la gudboon in cusbitaalada hoos loo eego dadka bukaan ku jira oo iska jiinadii qalabkeedu ku gacmiina ugu iibisaan gudida way fashilantay gudiyay is-asil oo ummadda ka hor dhaqaaq lama aqbali karayo musuqa iyo macna darada filinka musalsalkeed matalaysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudan afayeen adigoo aad u mahadsan waxaad bartaan ka dhawaajisay in ay idin damqayso dhimashada bulshada Soomaaliland idinku waxaad tihiin xisbi mucaarad haddii ay idin damqayso dhimashada bulshada Soomaaliland idinku laftiinu maad ka damqataan oo isbitaalada bila ambulance maad ambulance geysaan mucaarad bartaan la soo taagan doorkaygu waa toosinaya tilmaam annagu 4 milyan ee Soomaaliland cashuur kama qaado cidda cashuurta qaadatay gawaadhida $80,000 ee qufulan Hargeysa ku dhex wadataa waa nimanka gudida cidda 5 milyan haysa ay su'aasha inaad weydiinaysa ay weydiisay xoolihii ummadda gacanta ku haysa waa nimanka gudida haysa tilmaamtii toosintana annagu kala ma hadhayno waana fashilmeen waxa ummadda ka dhaxeeyay dib ha u soo celiyaan tallaabadaana cidda qaadaysa waa madaxweynaha wad maasanta